السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaaynu soo qaadan doonaa mowduuc ka yara duwan mowduucyadeenii hore aynu qaadan jirnay, kaasoo aynu kaga hadli doono jidhka bini'aadamka iyo sida aadka u quruxda badan leh uu ilaahay u abuuray ugana soocay makhluuqaadkiisa kale. haddaba haynu gudagalna mowduuceena maanta. lamber 1, jidhka bini'aadamku waxa uu ka kooban yahay in ka badan 100 trilyan oo unug. 2, jidhka bini'aadamka waxaa ku nool bakteeriya aad u badan, taasoo lagu qiyaaso 10 jibaarka unugyada jidhku inta ay yihiin. 3, waxa uu neefsadaa qofka weyne qaangaadhka ahi maalintiiba in ka badan 20,000 oo jeer. 4, waxa ay nadiifiyaan labada keliyood ee bini'aadamku maalin kasta xaddi lagu qiyaaso 200 oo litir oo dhiiga, waxaana ay ka nadiifiyaan sunta iyo nijaasta. 5, boqolkiiba 25 ka mida lafaha bini'aadamku waxa ay ku yaalaan lugaha. 6, dhegta iyo afku waa labada qaybood ee keliyata ee aan istaagin marka uu qofku seexdo. 7, muruqa ugu weyn dhammaan muruqyada ku yaala jidhka bini'aadamku waxa uu ku yaalaa badhida, waxaana la yidhaahdaa gluteus maximus. 8, lafta ugu weyn uguna xooga weyn jidhka bini'aadamku waxa weeyaan lafta bowdada. 9, qofku waxa uu adeegsadaa ilaa 200 oo muruq si uu u tallaabsado hal mar oo keliyata. 10, biyuhu waxa ay ka badan yihiin boqolkiiba 10 miisaanka jidhka qofka qaangaadhka ah. 11, jidhka bini'aadamku waxa uu soo saaraa qiyaas ahaan 1 litir oo candhuuf ah maalin kasta. 12, waxa uu lumiyaa jidhka aadamuhu ilaa iyo 4 kiilogaraam oo ah unugyada uu tiirkiisu ka samaysan yahay. 13, ma ilmeeyaan carruurta yaryar ee dhashay ilaa iyo inta ay 1 bil ka gaadhayaan. hadda ma ooyaan anuu maan odhan, qaar badan baa moodi doona in idhaahday ma ooyaanoo is odhan doona waa ninku muxuu beenta ka sheegaya soo kuwa carruurta yar ooyaan. waaruna way ooyaan carruurta yariye, laakiin ma ilmeeyaan inta aanay bisha koowaad gaadhin. marka ay bishaasi u dhammaato ayuunbay ilmadu noo bilaabaysa ay la socdaato. waayahay, intaasna kaftan haynoo ahaato, haynu dib ugu soo noqon haddaba mowduuceeni. 14, labada keliyood ee bini'aadamku way kala yar yihiin. kelida bidixna waxa ay ka yartahay kelida midig ilaa iyo boqolkiiba 10. 15, waxa ay sheegaan qoladan saynis yahanadu in sanka aadamuhu uu kala saari karo qiyaas ahaan trilyoon ur oo kala duwan oo kala nooc ah. guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaadhnay. fadlan haddii uu muuqaalku ku cajabiyo, like gare, sabscribe-tana saar si uu muuqaalo badan kuu soo gaadhaan, una sheer gare asxaabtaada cidda aad doonayso inay ka faa'iidaysato. intaas iyo goorta aynu muuqaal dambe ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.